بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسر داودي البرنامج كان أيانكو إيجينا مناسبة سوين لوسو أجاسمي أو لو قبتي عاصمة جمهورية سومالان مقالة هرجيسة وقربتشو غير سومالان قاردها الدنيا كل قري حد كوسجا سومالان أي كوب قبصدين تاسو أي كوت غيريان go'aanka geesinimada leh ee qaateen golaha deegaanka magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska ee ku dhawaaqay in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u aqoonsan yihiin inuu yahay dal madax bannaan oo ka mid ah dalalka qaaradda adduunka waxaana ammaan iyo bogaadin u jeediyeen cid kastoo gacan ka geysatay in arrintaasi ay qabsoonto golaha deegaankuna cod aqlabiyada uu ku meel mariyo qadiyadda Soomaaliland iyagoo si khaas ah hambalyo iyo bogaadin u diray jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku naqan waddanka boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan kuwa deegaanka Sheffield ee sida xoog leh uga hawlgalay in arrintani ay qabsoonto qurbajooga kala duwan ee Soomaaliland ku sugan ee madashan xaadirka ka ahaa ayaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay munaasabadan ay ku iftiiminayaan doorka muuqda ee qurbajoogu ay ku leeyihiin horumarka Soomaaliland ka socda iyo sidii beesha caalamka xukuumad shacab iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliland ay uga qayb qaadan lahayd in la meel mariyo qadiyadda Soomaaliland ee hayaanka dheer loogu jiray 23 sano oo Soomaaliland ay madax banaaneyd barnaamijkan ayaan ku eegaynaa idil ahaantiinba daawasho wacan oo wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتي سكوتي مid halkan oo badan qurba joog waxaan ku salaamay salaanta islaamka waxa farxad weynaya inaan ku soo dhaweeyo xafladan ujeedadeedu tahay mahadnaqayno walaalaheena reer Sheffield ee dhigay tallaabadii ugu horeysay ee aqoonsiga Soomaaliland xafladan waxa ay noo qaban qaabiyay xiriirihii hore hay'adda qurba joog ee qaaradda Yurub Cabdiraxmaan Cali Ubaxle ujeedadu kale yahay waxa weeyaan inaanu mahadnaq u muujino walaalaheena reer Sheffield oo qabtay run ahaantii shaqo aad muhiim u ah waa shaqo dhamaanteed bayna wada sugaysay xilina sugaya ay naga furteen oo loo baahan yahay inaynu ku dayano oo markii ugu horeysay muddo 23 sanadood ah dhagaha ummadda Soomaaliland ay ku soo dhacaan kelmadda aqoonsi taasina waxa keenay mahadnaqeeda iyo abaalgudkeeda waxa iska leh jaaliyadda reer Sheffield waxaana loo baahan yahay in jaaliyadda reer Sheffield ay noo muujino taageeradeena shakhsiyan waxaan soo jeedin lahaa hadii la ila garto in 18 May ee UK lagu qabanayo magaalada Sheffield ay u noqoto center oo laga abaabulo halka waxay u tahay ummadda reer Soomaaliland mahadnaq waxay u tahay tusaale dadka inoogu tabarucay ee ku dhiiraday ee geesinimada muujiyay councilka Sheffield waxay u tahay abaalgudayno arrinta iyada ah ee aynu muddada 23 sanadood aynu u oomanayn mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan qurba joog halkan isugu yimid oo ay ka mid yihiin madaxdii hore qaranka Soomaaliland waxa ka mid ah Kayse oo ahaa wasiirka ku-xigeenkii hore wasaaradda arrimaha dibadda waxa ka mid ah Xasan Siciid oo ah gudoomiye xogayaha guud ee xisbiga kulmiye waxa ka mid ah safiirka Sweden inoo fadhiya Masar Qaba ka mid ah Cabdifataax baa ka mid ah oo safiirkii hore inoo fadhiyi jiray Ireland iyo dhammaan dadka kale ee qurba joog ee halkan isugu yimid waxaan leeyahay welcome waxaan jecelahay iminka inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka ninkan maanta martida u nahay Cabdiraxmaan Cali Ubaxle oo xafladan iyada soo kan yeeray inuu kalmad kooban halkan ka yimaado soo dhaw Cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي وحن هلكن آديات وقاقا mahadnaqaya dhammaan asxaabtayda qurbajooga madaxda qaranka intay nagala joogta ee soo ajiibay inaynu halkan maanta jaaliyadda Sheffield oo runtii hawl aad qaranka Soomaaliland ugu ah muhiim inoo qabatay ujeedada maanta halkan aynu isugu nimid waxa weeyaan inaynu dhiirigelin u sameeyno jaaliyadda hawsha ku dhaqaaqday ee maanta ereyga ay dhagaha reer Soomaaliland ugu jecel yihiin ee ah ictiraaf bilowday inaynu dhiirigelino si jaaliyadaha kalena ugu daydaan waxaanu nahay muwaadiniin dhammaantii reer Soomaaliland
waxaanu rabnaa inaynu ka midho dhalino qadiyadda Soomaaliland ee aynu 23 sanadood baadidoonka ugu jirnay alxamdulillah rabbil caalamiin waxay naga dhiman ma jiraan oo inaga is ixtiraafnay laakiin waxaanu doonaynaa inaynu halka ka sii amba qaadno waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn waxa isleeyahay maanta madaxda halkan fadhida ambassador Rooda Jaamac Cilmi ayaa ugu sareysa oo madaxda qaranka maanta inagala joogta qurba joogna ah oo maxaa la yiraahdaa iyada lafteeda waxay dhiirigelin u tahay inay jaaliyadaha ay ku noqon doonto insha Allah ku dhiirigelisay inta labadaas la qaado waxaan madaxda dhamaanteed waa leedin wada sheegay inta kale waxaan leeyahay runtii waa hawl inoo wada taala dhamaanteen inaynu garab istaagno haddii hawsha maanta halka ka dhaqaaqday aynaan dhiirigelin noocan u sameeynin ama aynaan garab istaagin ama aynaan u muujinin runtii talaabada la qaaday waxay midhan noqon mayso xukuumad ahaan iyo qaran ahaan iyo shacab ahaanba inagoo isku duuban waa inaan hawsha bilowga garab istaagno haddii la ka dhigo aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan inta halkan maanta isugu timi waajibaad aynu leenahay ayuun baynu isnidhi guta qofun baa bilaabi lahaa aniga waxa ila muuqatay inaynu inteena joogtaa tahniyada iska gudbina haddii la ka dhigo jaaliyada reer Shafiil iyo dhammaan xubnihii golaha deegaanka ee reer Shafiil aynu tahniyad runtii kaliya laaba u gudbino oo aynu raahno waxaadna maqashiiseen runtii ereyga aan ugu jecelahay hadaan reer Soomaaliland nahay oo aanu muddo 23 sanadood sugaynay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa cid kasta hawsha ka qayb qaadatay iyo cid kasta ilaa imanka ku hawlan sida ay uga midho lahayd waxaan leeyahay waa hawl inoo taale halka aynu garbaha isqabsano ka wada midho dhalino in walba halka kaga haboon ha ka qabto aad iyo aad baan mahadsantihiin dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Ubaxle iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa inuu kelmad kooban halkan ka yiraahdo gudoomiyihii hore hay'adda qurba joogga qaranka Maxamed Cabdiraxmaan ay maanta labadii bishii Abriil ay horta la mid tahay 1960kii 26kii Juun ayay la farxad tahay ama la maqaam tahay waxa aynu maalmahanba aynu hambalyeynay magaalada Sheffield gudideeda qurba joogga ku dhawaaq gelisay ama ka dhaadhicisay councilka Sheffield sida ay noo ictiraaf lahaayeen gudidaas oo aan u mahadnaqayo gudoomiyaha jaaliyada aadan Sawaaxili waxaan kaloo mahadnaqayaa Linda iyo odaygeeda iyo dhammaantood Maxamed Macruuf iyo dhammaantood ragii ka qayb galay waxaa la yidhaahdaa hirgelinta la hirgeliyay ictiraafidda reer Somaliland waa maalin nagu weyn waa maalin aynu doonayno inaynu maarta waxa iyagu sheegeen waa meeshii uu ka bilaabmi lahaa dhimbiishii waxaa la yidhaahdaa ictiraafka Somaliland waxaan filayaa haddii ilaahay ka dhigo siyaasaddu say u socoto ama dawladeennan uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo siyaasad hufan wax qabad leh maxaa la yidhaahdaa soo dhaweyn leh ay ku maamulayso oo iyada lafteedii albaabo badan maanta inoo furaysa waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxda ka soo qayb gashay xafladda tan oo aan kula dardaarmayo safiirooda waa la sugayaa reer Sweden haddii ilaahay ka dhigo sidaad uga qayb qaadan lahayn ictiraafka iyadoo Sweden ay ku dhowdahay lafteedu dawladaha aad inoo ictiraafsan ictiraafkina aan siin laakiin ictiraafsan iyo dawladdan kale la jaarka ah Denmark iyo Norway waxaan filayaa haddii ilaahay ka dhigo 18 May sidii horeba uu sheegay walaalkay uu sheegay inay noqoto centerka Sheffield dalkeenana aynu uga dabaaldegi doono inagoo board kasta ku qori doona reer Sheffield ama maxaa la yiraahdaa councilka Sheffield aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhaweynayaa xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye Xasan Saciid aad iyo aad horta ugu mahad celinayaa magaca xisbiga dadka soo abaabulay xafladan aadka iyo aad ka qiimaha badan leh waana arrin loo baahnaa waxaan magaca xisbiga kulmiye aan ku hambalyeynaa jaaliyadda reer Sheffield iyo councilka Sheffield ee hawsha weyn qabtay siyaasadda xisbiga kulmiye waxa ka mid ahayd manifestka xisbiga in la dhiirigeliyo ama la xoojiyo xiriirka dadka qurba joogga reer Somaliland iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen raadinta ixtiraafka Somaliland hawlo badan way qabteen
jaaliyadaha reer UK kuwa Europe jooga kuwa North America jooga inta hawl badan runtii way qabteen laakiin talaabada ay reer Sheffield maanta qabtay waxa weeye talaabo bilowna oo aad iyo aad u muhiim ah waa talaabo mudan ku daysho hambalyo iyo abaalgud bay la siiyo waxaan halkan idinka ballan qaadayaa shirweynihii xisbiga kulmiyay marka waa week kadib report kayaga official report ka waxaan ku dari doonaa arintaas waxaana ka soo bixi doona shirweynahaas qaraar taageero ah oo lagu taageerayo jaaliyadda Sheffield iyo kooxda Sheffield aad iyo aad baa mahadsantihiin mar labaad aad iyo aad waxaan doonaynaa markaa in ay ku daydaan jaaliyadaha kale ee qurba joogeen doorka ugu weyn bay ku leeyihiin qadiyadda Soomaaliland horumarka Soomaaliland iyo waxqabadka Soomaaliland ba marka aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ogayaha guud ee kulmiye aad ayuu mahadsan yahay xasan saciid iminkana waxaan u yeerayaa qadiyadan ictiraafka Soomaaliland xukuumad walba meel bay soo gaarsiisay marka mas'uul kamida mas'uuliyiintii sida aadka ah isku hawlay inuu qadiyada ictiraafka Soomaaliland oo ka hawlgalo wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda Axmed Kayse ku soo dhawow waxa farxad weyn runtii ah inaan ka soo qayb galo xafladan sida fiican loo soo agaasimay ee loogu talagalay in lagu taageero jaaliyadda reer Soomaaliland ee Sheffield ee hawlgalkii fiicnaa aynu aragnay bishiin labadeedii inoo sameeyay waxa kalaan u mahadnaqayaa anigoo fursadan ka faa'iideysanaya xiriiriyaha jaaliyadda qurbajooga Soomaaliland ee Yurub Cabdiraxmaan Cali Ubaxle oo nagu soo casuumay inuu soo agaasimay xafladan aad u qurux badan leh runtii waxaan isleeyahay markii ugu dambeysay ee anagu ka tagnay xukuumaddii 2010 July meel fiican bay maraysay waxaan kalaan iyadana aan la inkiri karin ama la dafari karin xukuumaddan Soomaaliland oo galwadeenka ka yahay hadda Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo inay meel fiican soo gaarsiisay ayaan iyadana aan halkan ka qiraynaa waxa laakiin maanta aan doonayaa in daana ka hadal marxaladii uu soo maray xukuumad kastaaba intay soo gaarsiisay aqoonsiga Soomaaliland ina fursadan maadaama waqti xun aynu joogno dadkuna badan yihiin aan u mahadnaqo jaaliyadda reer Soomaaliland ee sida geesinimada ay hawlgalka ay sameeyeen ay u codeeyeen suurta geliyay in 88 xildhibaan ee golaha deegaanka ee magaalada Sheffield inay u codeeyaan 86 kamidihii ictiraafka Soomaaliland runtii labada xildhibaan ee kale ka aamusay laftoodu oo midna ka aamusay midna uu diiday iyaga laftooda waan u mahadnaqayaa waayo waxaan qabaa inay noo qurxiyeen dimuqraadiyaddii iyo codayntii meesha ka dhacday oo 88 kuba haday haawad oran lahaayeen wax laga yaabaa in si kale loo arki lahaa marka laftoodu labadaasi xildhibaan ee midna aamusay midna ka codeeyeen runtii iyagana waan u mahadnaqayaa qurxinta ay noo qurxiyeen waxaan leeyahay reer Sheffield jaaliyadda reer Somaliland waxay ka galeen bal dahaba ay taariikhda Somaliland ee ilaa iyo 19 geedi socodkeedu ahaa inay ictiraaf hesho ay markaasi aan oran karaa bal dahaba ay kaga qormayaan qolyaha kale qurba jooga ama iswana safiirkan waa joogaan ama Yurubta kale ama North America iyo kale Mareykanka in Cabdi Haybe oo ku soo arkay Seattle Washington iyo qolada Canada ka timi iyaguna waxaan hubaa imiga waxay kaga qoran yihiin bal dahaba bal naxaasa ama mara iyaguna bal dahaba kaga qormi doonaan taariikhda geedi socodka waxaan intaasi kaga baxay iyadana inaan u mahadnaqo 86kii xildhibaan ay noo codeeyay oo gartay inay Soomaaliland xaq u leedahay inay tahay inay ayaheeda ka tashato inay buuxisay markii hore qarsoodi baa la sameeyay jiray ama si qarsoodi ayaa loo qiri jiray Soomaaliland inay tahay dal jira sababtaa waxay buuxisay shuruudihii dalka madaxa bannaan looga rabay oo dhan haday tahay xuduudaheedii oo sugan oo xuduudihii kaga tagay gumaysigu haday tahay inay tiro go'an oo lagu qiyaaso ay leedahay permanent population oo 3 milyan iyo bal sidii lagu qiyaasay 2006 inay tahay inay leedahay dawlad shaqaynaysa iyo inay leedahay awood ay kula macaamisho dawladaha kale ama xiriir caalamiya ama macaamil heer dawladooda shuruudaha buuxiye qaarkood dawladaha badan si badan
oo qarsoodi ayay u qiri jireen laakiin waxa maanta farxad leh oo geesinimada iyo koobka qaatay golaha deegaanka reer Sheffield ee yaqiinsaday inay Soomaaliland tahay dal hore u jiri jiray kowdii luulyo ka hor haddana jira oo shaqaynaya waxaana ku rajo weynahay inay golayaasha deegaanka kale iyo MPyada iyo xukuumadaha kalena ay ku dayan doonaan intaasi ayaan kaga baxay anigu hambaliyaan leeyahay golaha deegaanka waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dhammaan jahliyada reer Sheffield ee baalka dahabka kaga qoran taariikhda Soomaaliland gaar ahaan ururka aad isugu hawlay ee jahliyada Soomaaliland la israac waxa urur aad iyo aad ugu dadaalay inuu guto xilkii qaran ee ummadda Soomaaliland ka saarnaa hadda waxaan u yeerayaa safiirkii hore Soomaaliland u fadhiyay wadankan Ireland Cabdisax soo dhow Yorkshire waxa ku jiray John Prescott oo deputy prime minister ahaa maanta waxa ku jiray dawladda hore Labourka David Blanket oo laga soo dooranay Sheffield oo community Soomaaliland waliba qayb weyn ka qaateen soo bixitaankiisa xildhibaannimada wasiirkii dakhliga in dooro ahaa dawladda hore dawladdan maanta jirtana Nick Clegg ayaa deputy prime minister ka isna Sheffield baa laga soo doortaa runtii waa magaalo runtii taariikh aad weyn leh waxaan doonayaa runtii anigu hambaliyada hore oo gudbiyay oo soo koobaya maxaa haydo in lagu daydo Sheffield waxay sameysay arrin aad u wanaagsan magaalooyinka kale Bristol oo kale waliba waxaan aad u soo jeedinay anagu waxaan joognay 2006 baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro markii uu horeysay yimid iyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee Cabdicasiis Samaale ayaa baarlamaanka walashka la furayay boqorada furaysay oo ka qayb galnay marka in laga runtii ololeeyo baarlamaanka walashka oo kale ka Scottish oo kale runtii muhiim ah oo iyagu qudhooda imka cod loo qaaday September sanadkan laga yaabo inay ka go'aan United Kingdom laga ololeeyo iyo waxyaabo badan bayna tari kar marka labadaaba focuska la saaro taasoo jaaliyada waliba UK u soo jeedinaya jaaliyadaha kalena inay ku daydaan sida kuwa maxaa ahayd North America oo kale Europe ta kale oo kale UK qudheeda reer London oo kale runtii dhaliil badan baa saaran in laga hawlgalo anagu waxaan ururka u ictiraaf raadinta Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Caab Faarax ilaa una xariistay sameeyay 1994 waxa la oran jiray Steel waxa ku xigay ururka 1997 ka sameeyay Sirag la oran jiray Somaliland International Reconnection Action Group labada urur bay jireen oo waxa ictiraaf raadinta Xasan oo gudoomiye xogayaha guuda ayaan bariga jamhuuriyadda oo soo diri jiray reportska 1994kii waa la heli karaa recordska ku jiraan Foreign Office Ingiriiska recordkooda ku jiraan marka waxaan leeyahay runtii hambaliyo ku dayasho runtii mudan oo aad mahadsantiin waxa jooga odayaashii Sheffield odaygii ugu weynaa isagoo way dambeyn doona Mijir Qaadi laakiin hadda waxaan ku soo dhaweynayaa siyaasi kamid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland Maxamed Qabo ku soo dhow xiriiriyaha jaaliyada Soomaaliland Cabdiraxmaan Cali Ubaxle oo runtii waxaanu inteena qurbajoog goodhani runtii aad baan shalay ugu farxay markii la soo hadlay waana munaasabad ku haboon meesheeda kuwa halkaas uu maahay inaynu naguna hambalyeeno qoladina qurbajoog halkan u badan wadanka soo guurtay ama joogta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa talabaad kole ictiraaf maaha laakiin waxa way waa signal waa message loo dirayo adduunyada inteedii kale ama baarlamaanka haddaan ka daba gala saaxiibkay taariikhda South Yorkshire ama waa strongholka nimanka Labourka la yiraahdo waa 86 labadan anigu goor lagu daragalmay 86 ayaa councilorskooda weeye 86 ka gabadha Julia la yiraahdo maayarka hadda 60 kamidi waa Labourka 20 kamidina waa liberalka labana waa greenka wax conservative la yiraahdo laga ma yaqaan waxa ka sii fiicnaan lahayd iyadoo ay maanta Labourku haystaan halka uu David Cameron ka haysto haduu Ed Miliband ka haysan la saameyn weyn bay ku yeelan lahayd laakiin waxaan filaynaa 2015 waqti bay doorashadeena wada dhici doonaan in ay waqtiga iyo insha Allah biidnillah dawladdeena cusub iyo dawladda cusub ee Britain oo Labour ay wada jaan qaadi doonaan wax fara badanna inay ka tari doonaan markaad eegto maaha un councilorska city councilka Sheffield toddoba waxay ku leeyeen MEP-ga member of parliament-ka Europe waxay ku leeyeen toddoba reer Sheffield toddobana waxay ku leeyeen baarlamaanka member of parliament-ka ka jira UK-na toddoba ay ku leeyeen 14 kaas ka soo baxay Sheffield marka sida maqaala igu ah qolada Europe iyo qoladii UK ba waa la taataabtay marka laftooda iyagu waa la dhaqaajiyay marka waxa laga yaabaa dhaqaaqaasi inuu galo baarlamaanka haddana uu galo ka UK haddana uu galo ka Europe runtii waxaan iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa
nimanka ka shaqeeyey ee inta badan iyo wakhtiga badan ku lumiyey wax yar oo fudud maaha in dhowr iyo 80 councilorkii Shafiili inay gacanta u taagaan aqoonsiga Soomaaliland waa ku dhac runtii waxaan soo jeedin lahaa inaynu nagu jawaabteena haddaynu dawladda aynu bixino in aynu ku casuuno member of councilorka Shafiil oo waliba uu ku jiro baarlamaanku 18 May inaynu halkan keeno waynu awoodi karnaa 23 waynu yeeran karnaa 2-3 days ay nala joogaan waliba weekend bay ku beegantay 18 May inay halkan inoogu yimaadaan dawladdeenu ay invite garayso taasaan soo jeedin lahaa waayo waxay noo noqonaysaa bal waxaan qaar baan fikruun mooyaan ama wax loo sheegay mooyaan aan warkahay marka inay wax badan ka arkaan si ay u karaar qaataan kulli meelahaas ma ku soo gabagabaynayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan ku soo dhaweynayaa hadda safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Sweden Rood Jaamac Cilmi kor waxaan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Ubaxle oo inagu casumay xafladan sharafta leh oo mudan in aad loo xuso marka labaadna waxaan hambalyo aan soo koobi karin u dirayaa jaalida Soomaaliland ee Sheffield waxay nagu noqotay wax lagu tooso waan ku faraxsanahay inay ka timi xagga Ingiriiska waayo bariyaanba waynu suluugsaneen dawladda Ingiriiska waxay Soomaaliland ula shaqayn weyday marka waa good point inay ka soo baxday xagga Sheffield iyo Ingiriiskaba waxaan oran karaa imika waxa uu boormay unug aynu u baahanay inaynu kubcino meel kasta aynu joogno khaasatan haday tahay Yurub intaan halkan joogto waxaan u maleeynaa inuu badanay reer Yurub haddaynu maanta helnay meel laga aqoonsaday oo Yurub kamid ah waana inaynu booqasho ugu tagnaa jaaliyada Sheffield aynu ogaanaa sida u shaqeeyaan khaasatan maadaama aanu safiirka Sweden aad baan ugu xulanahay Sweden dawladda aad baan ugu xulanahay laakiin arintani waa arin u baahan inaanu wax ka qaadano aan ka barano jaaliyada Sheffield marka waan ku faraxsanahay hadal dheer ka soo jeedin maayo halkan inaga inoo tala reer Soomaaliland saynu heer halka uga sii wadi lahayn iyo saynu gaarsiin lahayn wadamada kale Yurub iyo inta Ingiriiskaba marka aad baad mahadsantihiin imikana waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdi Maxamuud Saleebaan oo ah siyaasi reer Soomaaliland jacalay marka ugu horreysay inaan halkan uga mahadnaqo Cabdiraxmaan oo isugu kan yeedhay inteenan oo dhan inoona sameeyay xafladan marka labaad waxaan jecelahay inaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeediyo jaaliyadda reer Sheffield maanta samaysay ama qaaday tallaabadii u horreysay loo qaaday dhinaca itiraafka mahadnaqa ku xiga waxaan u mahadnaqayaa dawladda ama deegaanka councilorka reer Sheffield iyagana leeyahay runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku raacsanahay sidii saaxiibkay Maxamed uu sheegay oo kale inaynu tusno oo u muujino in ay wax wanaagsan inoo qabteen oo aynu halkan ku casuuno intaa kadib runtii waxaan qabaa inay tahay tallaabo loo qaaday xagga saxa ah wax waliba meel bay ka bilaabmaan waxaan filayaa inay maanta tahay bilowgii ugu horreeyey siduu Maxamed Ibrahim sheegay waxay u gudbinayaan baarlamaan badan ba labada baarlamaanba ka Yurub iyo ka Ingiriiskaba reer Sheffield waxay ku leeyihiin members badan marka waxaan qabaa in aynu dhammaan inteena kale jaaliyada kale ee wadamada kale ee kala duwan iyo qaaradaha kale kala duwan meel kasta ay joogaana inay ku daydaan tallaabada runtii waa tallaabo aad iyo aad u muhiim ah waa guul u soo hoyatay shacabka reer Soomaaliland inta kadib waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaanteena aynu fadhiga ka kacno assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan jeclaan lahaa inaan hoosta ka xariiqo arrin uu Maxamed Ibrahim sheegay oo ah in ay dawladdeenu ku dhiirato in la soo casuumo councilorska ama raga member of parliament reer Sheffield laga doorto 18 May halkan lagu soo casuumo waa tallaabo ku dayasho mudan waa tallaabo dhiirigelin oo ah ummadda Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba 18 May in xaruntiisa noqoto Sheffield waa arrin iyadna u baahan in laga shaqeeyo waxaan halkan ku soo dhaweynayaa Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed ku soo dhaw Suldaan inuu madaxda qaranka xogayaha guud ee xisbiga kulmiye mas'uuliyiinteennii hore waxaan kaloo iyagana u mahadnaqayaa gaar ahaan jaaliyadda reer Soomaaliland ee qurba joogta iyaduna maanta inagala soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah ee aynu ku xusayno in aynu ku bogaadino kuna hambalyeeyno in jaaliyaddeena Sheffield sida ay ugu dadaaleen aqoonsiga Soomaaliland
in ay maanta iniintii u horraysay ay dhigaan sidaa daraaddeed waxaan kaloo iyaduna hambalyo u jeedinayaa xidhiiryaha qurbajoogta somalilan ee inoo jooga magaaladeennan haddeerna casumaadda iyo xafladda inoo sameeyey cabdiraxmaan cali ubaxle waxaan kaloo aan leeyahay qaybtaasi waa qaybtii koowaad oo inoo bilaabantay oo ah aqoonsigeenna jaaliyadaha kale ee qurbajoogta ee joogana ama london ama birmingham ama meelihii kalena sidii hadda uu cabdifataax ka sharqaminayay oo ahayd khaasatan scottishka iyo walishka in xoogga la saaro aniga beryahanba aad bay iigu warwareegaysay hadda markii cabdifataax ka sharqamiyey aad ayaan ugu farxay sababtu maxay tahay waa dad iyaguna baawar ku leh boqortooyada dalka ingiriiska iyadana inuu halkaa dadaalka aynu ka sii wadno intii soo qabanqaabisay ictiraafkaasi inta uu niyadda kaga jiro inta uu daacadda ka yahay inta uu dhabta ka yahay inta doonaysa inta rabta inta u ololeynaysa ee reer somalilan oo dhan waxaan leeyahay hambalyo guul iyo khayr baan u rajeeyay insha allah oday ka mid odayaasha reer Sheffield markaad maqasho aqoonsiga somalilan baa markaaba kugu soo dhacaya marka waxaan jecelahay mijir qaadi inuu kelmadiisa isna ka ilaaso munaasabadan aynu isugu nimi xafladan qiimaha iyo qaadaha leh marka hore ilaah baa mahadle mar labaadka cabdiraxmaan ayaa oo ka soo shakeeyey inana cazumay ina marti qaaday ayaa isaguna ku mahadsan hawshaa u galay reer Sheffield jaaliyadda sida wanaagsan u agaasintay uga shaqaysay iyo hirgelisay iyo mudanayaasha codkoodii inoogu deeqay intaba waxaanu leenahay waa mahadsantihiin hambalyo iyo bogaadinna halka kan waa uga diraynaa reer Sheffield intan kuma dhamma laakiin waxaan ogahay inay isku xidhnaayeen oo xaggaasi wanaagsan uga shaqaynayeen insha allahu inta dambana way israacin doonaan sidii laga dhawaajiyey waxaa jira dhul soomaalidu isku dhashay oo iska degtay oo wadashkaas ka mid yahay Scottishku ka mid yahay sidii loo sheegay in laga hawlgalo oo laga shaqeeyo oo lagu daydo kuwan reer Sheffield ayaa loo baahan yahay anigu hadda goor markaan hadlayo kulli in yar baan ku darsadaa wixiinan hadlayay cid kaliya u mahadnaqday warbaahinta iyo qaranka TV-ga qaranka dee idinkuma jirin iyo hoonkeedalba ku dar saxaafadda waxa weeye iyagayna soo gaarsiiyee in loo sheego wey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد علي وبحله مسؤول هذا